marka horta asabana cabdirashiid marka wax ka sabanayo like xal magaalada iyo wada caawa magaalada rabaa asagana shaqo leeyahay customer sugay abdi bariya mi jeclido bismiga diido maxaa la dhahaa marka asxaabta qaaliga ah magaciisa sax horta waa cabdirashiid xabso xoogan ugu bartay cabdi iyo cabdirashiid dadka kaliya ugu waca horta waa xataa aabay muxuu ugu wacaa aabay cabdirashiid ugu wacaa hooyaday cabdirashiid xataa ugu wacda cabdi ugu wacda qoftaan hooyay qash ka soo xad cabdi ugu wacay ayadana anyway cabdirashiid ku wacaa oo badan taama horta rashkiina dhaama jecel because real life kiisa hadda ku jira real magaciisana ugu wacaa waay ما شاء الله بيبي dadka ogile reeyada life kiisa qiyaali ku jira rashka dhaw بيبي maxaa u dadaalna caaw adee baasay ma maanta dhan hurda dareemaya maanta dhan cabdirashiid u soona maanta qamiis ahayd hadeero afuray ka fiican yahay waay ani ahaanteeda mid wanaagsan midaas intaasna waa ra'yiga dabcan qof walba ra'yigiisa waa ka arrinka wali ma Soomaaliya arrinka معناها أنا عد ما مركا عليها بهدل بيبي قلبي اللوغة بوكسي بيبي قلبي بوكتينا بس نغدا انت نغبضن دايما نغلم بلنتنا كما بيحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة غالية أهلا مانتين وانيدن سلامي ميرو البوء الدنيا كجوكتان جنال كاد نغدا ونيسان وصادق سيمبا اوفيشيال أني قنا وحان أهاي صادق كسو دوادا مركا إيا موقال عصب مانت موقال وحان إذين وذا maalmahan oo dhan baraha bulshada la isla dhaxwaday muuqaalkaasi oo dadka oo dhan waxa dhigi karnaaba youtuberadii dhan ayaa qaada dhigaya oo ka hadlay arrinkaas horta runtii arrinkaas waa arrin mudan in laga hadlo oo macnaha arrin yani dadka dhan macnaha waxay sababta yani kalaftay inay uga hadlaan ayaa meesha ku jirto waa arrin u baahan in laga hadlo arrinkaasna wax kale ma ahan fanaanka ama youtuberka magaciisa la yiraahdo Rashka Boy sidaan ku ogahay dabcan heesana uu qaadaa waana youtuber iyo xaaskiisii Xafsa ayaa maalmahan la qaada dhigaya waxa rabaa inaan wax ka dhaho arrinkaas inta aniga yani sida aniga aan u arko iyo macnaha sida arrinka uu yahay inaan wax ka dhaha rabaa ma fahanteen marka asxaabta waxa rabaa in aan marka ugu horeyso asla daawano muuqaal uu soo galiyay Rashka Boy YouTube-kiisa muuqaalkaas marka hore rabaa in asla daawano marka asxaabay muuqaalkan hadana bilaabanayna inta muuqaalka aanan bilaabanin waxaan rabaa inaan ku soo xasuusiyo hal mid taasoo ah inaad subscribe noo saarto sidoo kale maanta wajigeyga kama muuqato dhoola cadeyn kama muuqato farxad maxaa yeelay aniga ma jecel laba qof oo lamaane ah inay kala tagaan ama kala fogaadaan Xafsa iyo Rashka Boy waxay ahaayeen laba lamaane aniga ahaanteeda aan taageero aan jeclaa inaan ku daydo yani mar walbana aan aad ugu xirnaa wallahi waa ka xumaaday runtii dabcan markii aan maqlay way kala tageen hotor way jirtaa calafka haduu dhamaado waa la kala tagayaa lama jiraayo laakiin qof aad jeceshahay macnaha oo hadana lamaantaada ahayd inaad yani si maanta oo aad si yani oo aad uga tagto banaanka waa laga fiican yahay teeda kale waxaan harinka oo sii dhaliyay buuqa waxa waaye muuqaaladii oo dhan YouTube-ku ka saaray muuqaaladii ayada iskula jireen uu ka wada bixiyay YouTube-ka haddana waxaan daawanaynaa muuqaalkiisa طبعا هذا أقول قلنا نبلغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما وعد السلام يا حاوي ولكن Rashka Boy ومدة كم إحنا براها بالشدة خاصة يوتيوب حاويا عاو ساعدنا وقت دنبوا لكن أرين مهم أيوه كلفتي إن هذا نسوه رستاغو وحكلم Rashka Boy arinta muhiimka ah ee kugu kaliftay in aad bulshada hor imaado bal siida aan maqalnay ku soco YouTube waxa ka socdo dhamaantiin wada ogtiin aniga waa la socdaa kulligiin waa la socotaan YouTube bas ma aha TikTok Instagram Facebook hal waxa rabay yani ina oo caawa ka hadlo horta waxa fiican in la is ixtiraamo dadku bini'aadanka waxay kala mudan yihiin ixtiraam iyo xushmad in la isku xadgudbo ma fiican ani mali waxad gudbo waligeed maya إذا كان سيدك إذا كان في الأدمانتنا مع خاركين خاركاس وحويان وضد ضخم عقلي علىهن ويعني عن نمو عن أنخذان وضوين كلو الصومرايان هتر تاس أكاد حقلو حد وحد هذا وحاجة ضد ضخمين سيعان أنخذان معناها وضوين كلو الصومرايا
dad way jiraan macnaha waxyaaba xun ku qaraabta laakiin dadka oo dhan ma wada ahan hadda adi arrinkaaga dadka oo dhan hadal haayo dadka oo dhan wada hadal haayo hal qof ma ahan laba qof ma ahan dad ayaa jira dhahda dad way jiraan xumaanta ku qaraabto badanaa waxyaabaha xun sameeya laakiin dadka oo dhan ma ahan taas waa kaa dhexgelaya horteeda kale haddii aad adiga iyo xaaskaaga kala tagtaan waa arrin adiga ku qoseeya laakiin bulshada waa inay muujiyaan dareenkooda iyo siday wax u arkaan iyo qaabka ay jecel yihiin ayaga dabcan qof walba wuxuu jecel yahay wanaag inuu wanaag uu gaaro qofka walaalkaaga heerka adiga aad rabtid inaad gaartid heer ka sarreeya inaad la jeclaa sida fiican aniga ahaanteyda waan idinku dayan jiray waxaan ahaa qof taageerihiina ka mid ah laakiin rashka boy arrinka hadda adiga aad samaysay kuguma raacsane dabcan laga yaabaa khilaafaad kale inuu jiro iyo inaad yacni si kale ku kala tagteen laakiin arrinkaas adiga ma kugu raacsane ku soco marka dadkaas waxaa dhihi lahaa marka hore horta nacasaad tihiin haddaa wax rabtaan anay soo raadsadan waa la yaqaanaa Kenya ku noolaa magaala haddii aad waxaad rabtaan wuxuu dhahay waxaa aniga isoo raadsada adiga sabab lagu soo raadsado oo hadda ma jirto oo yacni dadka cadaawad adiga qaasa kuuma qabaan laakiin dadka macnaha waxay kasoo horjeedaan xaaskiisa iyo asagaa kala tegay intaasna waa wanaag ma ahan xumaan ku soco Nairobi xaafadda isli imaada wax hubsada laakiin saacaan u noqotid mase views u heshid wax okay waxaa dhahday wax hubsada dadka maxay wax hubsadaan dadka muuqaaladii horta laba mid haddii aad dhileed muuqaalada waxaan uga saaray aniga ma doonayo xaaskeyga in dib loo arko muuqaaladeeda ma rabo inaan soo bandhigo haddii aad dhileed waxbay ahaaleed laakiin tiktoka waxaan kusoo arkay muuqaal adiga iyo gabar kale dabcan ma garanayo aniga kuma dambaawaay ma dhahayo qoftaada waay ama qofta hadda xiriirka cusub ala samaysay waay laakiin muuqaal waxaa jiro dadka yani sababta kalifaysaba dadka inay ku hadal hayaan muuqaal adigu aad soo gelisay youtube-ka aad dhehee tiktoka aad jiro muuqaalkaasi oo adiga iyo gabar kale iskula jiro dabcan haddana maalmaha muuqaal maada soo gelinin teeda kale muuqaaladii aad iskula jirteen adiga iyo ayada waad dhilad garaysay marka taasaa keenayso wax hubsadan waa leedahay ku soco sheegin waa qodob kor uga baxa midda tan xigta waxaa weeyaan arrinka hadda oo yacni maantadan la soo geliyey youtube-ka iyo khaasatan tiktok gabar waxaa jirtay oo garabkii taagneed oo hadala asdhaafsanay already dadka doqonyaasha hadda aa sheegaya oo maxaa la dhahaa dulliga caqliga aan lahayn waxay sameeyeen ka faa'iidaysteen views way ka faa'iidaysteen dadka dhinaca caynaysaa teeda kale caayada wax wanaagsan ma ahan qof inaad cayso nacasiin waaye sidan waaye wax wanaagsan ma aha taas waa laga fiican yahay maxaa yeelay dadka keliya waxay sheegayaan siday wax u arkaan ayaga siday wax u arkaan ma fahamtay social media ku jirtaa social media haddii aad ku jirtane qasab dabcan arrinkaaga social media hadduu yahay social media waa looga hadlayaa marka anima ila qumaan dadka inaad cayso oo dadka nacasiin aad ku tilmaamto asxaabta qaaliga ah xoogaha muuqaalkii intaasaa ku jaray ma doonayo in aan hadalkiisa kale sii dhegeysto macnaha arrimo badan oo ka hadlaya yaa lagu mashquulin saan yaa la yeelin intay ka dhacday saan waaye laakiin muhiimadda waxay tahay oo macnaha muhiimadda aniga hadda halkan aan usoo fariistay badanaa ma jecel dadka inaan ku mashquulo arrimahooda aan ka hadlo laakiin arrinkan arrin itaabto waaye oo macnaha arrin aniga ay qoseeyo markii aan kuleeyahay arrin aniga i qoseeyo waxaa waaye anigu waxaa jeclahay labada qof oo lamaanaha ah inaysan marnaba kala tegin mar waliba ay isla joogaan isla farxaan isla qoslaan aysan kala fogaanin laakiin asaga hadda wuxuu leeyahay dad nacasiina jiraan sidan waay rashka boy aniga waxaa dhihi lahaa arrinkaas haddii ay tahay arrin sax ah wayba dhacdaba labada qof way kala tegi karaan arrinka ha caddeeyo oo bulshada macnaha intuu hor imaado hadhow saas wax u dhaceen si dadka ay u qancaan maxaa yeelay dadka dad xumaato raadinaya ma aha dad wanaag raadinaya waay dadka xumaatada raadinaya waxaa waaye dadka doonaya inay laba qof kala geeyaan ama ay kala fogeeyaan laakiin dadka qof haddii aad aragto dhahayo sababta u kala tageen maxaa waaye sida intaas wuxuu jecel yahay qofkaas in aad labadiina isla joogtaan teeda kale qof oo yacni ku garab taagnaa oo micnaha mar waliba muuqaal kula sameynayay xaaskaaga aad jecleed ahaa inaad ka dheeraato wax laga fiican yaha waaye ani ahaanteeda niyada wanaagsan midaas intaasna waa ra'yigeeda dabcan qof walba ra'yigiisa waa teeda kale arrinka weli macan macnaha arrin cad maaha marka aan leeyahay muuqaalka wuu ka saaray teeda kale ayadan hadda muuqaalo lama sameyso dabcan waxay u eg tahay inay kala fogaadeen way u eg tahay balse ma la dhihi karo way kala fogaadeen oo way kala dheeraadeen ma la dhihi karo marka muuqaalkan oo aan uga hadlaynay rashka boy iyo sawjadiisa xafsa aniga ilaa hadda ma hubo inay kala tageen iyo sawjadiisa ayaa leeyahay
marka asxaabta qaaliga ah aad u salaamantihiin meel walbo adduunka ka joogtaan waxaan idin leeyahay haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad janaalka soo booqato inaad janaalka subscribe noo saarto sidoo kale hanaga hilmaamin like na soo dhaweey subscribe wax markaa dhibeysa asxaabay subscribe hadaa janaalka ii saarto aniga farxada ii tahay marka asxaabta qaaliga aad u salaamantihiin